halkani waa BBC oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar facebooka iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa subax isniina 6 bisha September sanada 2021. arrimahan barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo faray Fahad Yaasiin madaxa hay'adda sirdoonka qaranka inuu sii wato shaqadiisa xilli ra'iisul wasaaruhuna uu shaqadii ka joojiyay ninkaasi si ku meel gaarana uu xilkaasi ugu magacaabay Sareeye Guud Bashiir Goobe. bandow aan mudaysnayn oo ay ku dhawaaqeen ciidamada gaarka ee xaddii la wareegay talada waddanka Guinea muxuu ka dhigan yahay heshiiskii shalay ee magaalada Muqdisho ku kala sixideen dhinacyada siyaasadda ee gobolada waqooyi. aan u malaynay cid walba inay ku farxi doonto kaliya ciladu waxay awal ka taagnaysay wax loo dhameeyaa wax loo dhaqaajiyaa waxaa muddo hadda maaragtay dhinacyadii inay tanaasulaad isku sameeyeen muhiimadun ay tahay arrinta marka hore la garan waayo oo ah in doorashadan waxaan dhexda la dhigto tartan ay tahay iyo kulan hal maalin socday oo Minneapolis ku yeesheen xirfadlayaal wax ku bartay waqooyiga Ameerika iyo ganacsato horumar ka sameeyay ganacsigooda oo dhammaantood Soomaaliya. kan waxaa isku soo dubariday Samiir Cabdullaahi Jaamac anigoo Cabditax Ibraahim Cageerna waan la socodsiinayaa balse marka hore waxaanu ku bilaabaynaa barnaamijka wararka caalamka iyo Cabdulqaadir Yuusuf Cali. mahadsanid Cabdi Fataax. kulan u dhaxeeya Argentina iyo Brazil oo ahaa isreebreebka koobka adduunka ayaa la joojiyey daqiiqado un kadib markii ciyaarta bilaabatay. waxaa garoonka yimid saraakiil caafimaad iyo boolis kuwaas oo xiray 4 ciyaartoy oo ka tirsan xulka qaranka Argentina kadib markii lagu soo eedeeyay inay jabiyeen sharciga karantiilka ee COVID-19. saraakiisha caafimaadka ayaa amray 4 ciyaartoy in la karantiilo ka hor intaanan dalka laga tarxiilin. ciidamada gaarka ah ee Guinea ayaa ku dhawaaqay bandow ilaa amar dambe ah waxayna awoodda dalka kula wareegeen afgambi kursiga looga tuuray madaxweyne Alpha Conde. waxay barasaabyadii gobolada ku bedeleen taliyaal military waxayna sidoo kale kulan isugu yeereen wasiirada kaas oo dhacaya Isniinta maanta ah. madaxa gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa Kaabul kula kulmay hogaamiyaasha Taliban wuxuuna u sheegay inay khasab tahay inay difaacaan dhammaan muwaadiniinta gaar ahaan haweenka, gabdhaha iyo dadka laga tirada badan yahay. waxa uu sheegay in Taliban ay isku taxluujisay in marin loo helo gargaarka bini'aadanimo. wiilka saddexaad ee madaxweynihii hore ee Liibiya Muammar al-Qadaafi ayaa xabsi ku yaala magaalada Tripoli laga sii daayay halkaasi oo uu ku xirnaa tan iyo sanadkii 2014. Saciid Qadaafi ayaa waxa uu ahaa taliyaha ciidamada gaarka ah ee Liibiya balse sidoo kale waxa uu isku dayay inuu noqdo ciyaaryahan kubadda cagta ah oo caan ah. ugu dambeyntiina maxkamad ku taala dalka Masar ayaa 10 nin ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii lagu soo eedeeyay ka ganacsiga daroogada. raggan ayaa waxaa la qabtay iyagoo sida maandooriye gaaraya 2 tan gaar ahaana nooca loo yaqaan heroin. 2 ka mid ah waxay u dhasheen Masar, mid kalena Iran, halka dhammaan kuwa kalena ay u dhasheen dalkaasi Pakistan. warkii subaxnimona waa naginta Cageere. aad baad u mahadsantahay Cabdulqaadir Yuusuf Cali ayuu kaasi ahaa wararka caalamka qodobadii ugu door karoonaa xilligan ayuu inala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa BBC dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka. waa tahay aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya ayaa bayaan uu soo saaray daqiiqado ka hor waxa uu ku faray Fahad Yaasiin madaxa hay'adda sirdoonka qaranka inuu sii wato shaqadiisa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka jawaabayay dhowr saacadood ka hor bayaan uu soo saaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kaas oo uu shaqada uga joojiyay madaxa hay'adda NISA iyadoo si ku meel gaar ahna ra'iisul wasaaruhu agaasimaha guud ee NISA ugu magacaabay Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba waxa ay cugsanayaan qodobo ku dhigan dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya. haddaba faafahinta warkan waxaan daqiiqada ka hor khadka taleefanka ee Muqdisho ku weydiiyey wariyaha BBC-da ee magaaladaasi Ibraahim Maxamed Aadan. عبد الفتاح ور قراله او كوردويت كسو بخاي حرونته مدحتويده magaalada Muqdisho isla markaana uu ku saxeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu sheegay in go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Roble inuu yahay nidaam madan xeerka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka. waxaa la farayaa baa la yiri taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir inuu sii wato hogaaminta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareysigii madaxweynuhu uu ku magacaabay. waxaa la yiri hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa la farayaa in ay hor keento golaha amniga qaranka warbixinta laga sugayay marka la mudeeyo kulanka ugu horeeya ee golaha amniga
qaranka. ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu farayaa baa layidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo golaha xukuumadda inay si hufan u gutaan mas-uuliyadda ka saaran dhamaystirka howlaha doorashooyinka. dabcan cabdifataax oo halkaa waxaa ka muuqata ereyada labada warqadood lagu isticmaalayba in marna madaxweynuhu isticmaalayo taliyaha marna ra-iisul wasaaruhu isticmaalayo agaasime si midkaahi sharci ugu helo qoraalkiisa. ibraahim ow bal marka warkan ay madaxtooyada villa soomaaliya ka jawaabayso ee ra-isul wasaaraha uu soo saaray bal inoo faahfaahi. cabdifatax waxaa le waqti dambe muddo hadda laga joogay ilaa 4 saacadood ayaa warqad ka soo baxday xafiiska ra-isul wasaaraha waxaa shaqada looga joojiyey agaasimihii hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka fahad yaasiin xaaji daahir kadib markii ra-isul wasaaruhu uu sheegay in codsigii loo diray ahaa inuu muddo 48 saacadood gudahooda uga soo jawaabo faahfaahinna ku keeno kiiska dilka gabar ka tirsaneed hay-adda sirdoonka oo muddo 2 bilood iyo dheeraada la weysanaa oo la yidhaahdo ikraan tahliil faarax uu soo gudbin waayey. waxa uu sheegay in markii uu arkay dhowr qodob oo awood siinaya inuu shaqo joojin ku sameeyo agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ay keentay in uu shaqo joojin ku sameeyo fahad yaasiin xaaji daahir islamarkaana si kumeel gaara shaqadaas loogu magacaabo sareeye guuto bashiir maxamed jaamac bashiir goobe. marka dabcan arrintan ilaa xalay ilaa shalay ayaa hadalhaynta ugu badan ay ahayd kadib markii agaasimaha nisa uu warqad uu u diray xafiiska ra-iisul wasaaraha uu ku sheegay in uu warbixinta ama xogta ikraan tahliil uu ku bixin doono shir uu sheegay in ay yeelan doonaan golaha amniga qaranka oo madaxda u yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. ibraahim ow marka ra-iisul wasaaruhu ma sheegay sababta uu shaqada uga joojiyey agaasimihii hay-adda sirdoonka qaranka? cabdifataaxow sida warqadda ra-iisul wasaaruhu soo saaray ku cad fahad yaasiin xaaji daahir waxaa looga fadhiyey in uu xog dhammaystiran ka keeno kiiska ikraan tahliil oo 2 maalmood ka hor hay-adda nabad sugidda ay sheegtay in ay u gacan gashay gabadhaasi oo muddo 2 bilood iyo dheeraada la weysanaa al-shabaab islamarkaana ay dileen inkastoo markii dambe al-shabaab ay iska diideen in ay dilkaasi iyo afduub gabadhaasi loo geystay midna aanay ku lug lahayn. dabcan waqtigaa wixii ka dambeeya waxaa isoo darayay baaqyada bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku aadan in la cadeeyo kiiska gabadhaasi maqnayd muddada 2 bilood iyo dheeraadka ah. ra-iisul wasaaruhu marka wuxuu ka codsaday agaasimaha hay-adda nisa fahad yaasiin xaaji daahir inuu muddo 4 saacadooda gabadhaas xog dhammaystiran warbixinteeda ku keena laakiin fahad warqad uu u diray ra-iisul wasaaraha waxa uu ku sheegay inuu arrintaasi la wadaagi doono golaha amniga qaranka. marka dabcan ra-iisul wasaaraha taas ayaa ka caraysay sida dad badani ay rumaysan yihiin taasaana keentay in shaqo joojin lagu sameeyo fahad yaasiin xaaji daahir. waata marka fahad goormuu kusoo biiray hay-addan sirdoonka nisa? inkastoo guud ahaan dowladda federaalka tan iyo marka uu xafiiska qabtay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo 8 february 2017 uu dowladda ka dhex muuqday oo bilowgiiba uu agaasimaha madaxtooyada uu noqday haddana 2018 bishii agost ayaa loo magacaabay agaasima ku-xigeenka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka. muddo sanada ayuu xilkaasi hayay inkastoo inteeda badan markii dambe uu kusimo ka ahaa sanadkaas kadib markii uu ninkii isaga ka sarreeyay agaasimaha ahaa uu siday isagoo taagsanaya xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. 2019 bishii agost ayaa si rasmiya loogu magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. tan iyo waqtigaasna wuxuu ahaa agaasimo buuxa oo hay-adda maamulayay. sida muuqata 2018 bishii agost marka laga soo bilaabo uu hay-adda ku biiray ilaa xalay oo xilka laga qaaday waxa uu xafiiska joogay nisa ilaa 3 sano. cabdifataaxow waaya marka ibraahimow ninkan cusub loo magacaabay xilka inuu ku wareego jenaraal bashiira maxaan ka naqaan? bashiir maxamed jaamac waxa uu haysta darajada ugu sarreysa qof ciidan soomaaliyeed ka tirsan oo haysto waa sarreeye guuto. marar kala duwan ayuu xilal kasoo qabtay ciidanka. mar wuxuu noqday taliyaha ciidanka asluubta, mar wuxuu noqday agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka. hadda wuxuu ahaa wakaalada dhismaha soomaaliyeed ayuu madax ka ahaa. mar wasaaradda arrimaha gudaha ayuu ka tirsanaan jiray kasoore hore oo heer caalami ah oo kubadda cagtana wuu ahaa. marka bashiir waa nin ay dadka oo dhan ay wada yaqaanaan. marka habka awood qaybsiga beelaha la yidhaahdana waxa ay isku qayb yihiin agaasimaha hadda shaqo joojinta lagu sameeyey fahad yaasiin xaaji daahir. kaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamed aadan waryahayaga magaalada muqdisho oo khadka taleefonka goordhaweed igu warramayay. dhanka kale arrintan waxa ay soo baxaysaa saacado un kadib markii madaxa hay-adda sirdoonka soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir uu u diray ra-iisul wasaaraha soomaaliya warqad uu uga codsanayo in golaha amniga qaranka ay kulmaan si uu ugu soo bandhigo xog la xiriirta ikraan tahliil kiiskeeda. warqadda ayaa waxaa lagu sheegay in hay-addu ay doonayso inay golaha la wadaagto warbixin buuxda oo dah furaysa xaqiiqda. waa sidaa halka loo dhigay. waxayna imanaysaa kadib markii sabtidii uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu madaxa hay-addaasi muddo 48 saacadooda
uu u qabtay inuu kusoo bandhigo xog dhammaystiran oo ku saabsan kiiska ikraan. Haddaba faahfaahin intaasi dheer waxaan goorsii horreyse weydiiyey Muxidiin Axmed Roble, tifatiraha laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. cabdifataaxow warqadan uu qoray agaasimaha hay-adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin ee uu u diray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu uga falcelinayay amarkii ra-iisul wasaaraha habeen hore ka soo baxay ee ahaa in muddo 48 saacadood ah hay-adda iyo agaasimahoodu ay kusoo gudbiyaan xog dhammaystiran oo lagu qanci karo oo la xiriirta kiiska ikraan tahliil oo ah gabar sirdoonka ka tirsaneyd oo la sheegay inay shabaab dileen. Marka agaasimaha hay-adda sirdoonka Fahad Xaaji Yaasiin wuxuu codsaday oo ra-iisul wasaaraha ka codsaday in xogta iyo warbixinta la xiriirta sargaaladan ikraan tahliil in uu ka hor aqriyo golaha amniga qaran oo wada dhan. Wuxuu sidoo kale markaa agaasimaha hay-adda sirdoonka uu intaa raaciyey in hay-addu codsi rasmi ah ay u dirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu weydiistay in uu muddeeyo shirka golaha amniga qaran si ay u dhageystaan xogta iyo faahfaahinta la xiriirta sargaalada la sheegay in la dilay hay-adda sirdoonka Soomaaliya ka tirsaneed. Waxaan sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaruhu ay xaqiijiyeen inay warqadaa heleen. warqadaa la midana waxaa loo diray xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Muxidiinow, warqadan ku socotay ra-iisul wasaaraha maxay ka leedahay xogtii uu filayay inuu ka helo dhanka hay-adda sirdoonka? wax faahfaahina kama bixinayso taa, laakiin warqadda waxay sheegaysaa sidii agaasimaha hay-adda sirdoonku ku qoray inay diyaar u yihiin inay la wadaagaan xogtaa oo buuxda oo faahfaahsan marka ugu horeysa oo golaha amniga qaranka uu kulmi karayo. Marka xogtii way hayaan sida hay-adda warqadeeda ka muuqata, laakiin waxay dalbanayaan in hay-adaha dowladda ay kala duwan ee qaybta ka ah golaha amniga qaranka in la wada kulansiiyo hal mar, isla markaana hal mar ay soo gudbiyaan xogtii ay ka hayeen sargaalada la dilay ikraan tahliil. Waata marka golahan amniga qaranka ee hay-adda sirdoonka ay codsatay in la kulmiyo oo ay xogtii hayaan usoo bandhigaan maxay yihiin? cabdifataaxoo golaha amniga qaranka horta waxaa markii ugu horreysay lagu soo hadal qaaday shirkii ugu horreysay ee ay yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo dowlad goboleedyada kale ee Soomaaliya 2 bilood uun kadib doorashadii madaxweynaha bishii February 2017. waxaase mar kale si faahfaahsan looga hadlay golaha amniga qaranka iyo habka u kulmayo shir kale oo dhacay bishii Luulyo isla sanadka 2017. shirkaas oo Muqdisho ka dhacay waxaa ka qayb galay madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare xilliga xilka hayay, madaxda dowlad goboleedyada, wasiiro heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo taliyayaasha ciidamada. waxaana shirka lagu go'aamiyey oo lagu sheegay in golaha amniga qaranka uu kulmi doono 3 bilba mar. inta la og yahay 7 jeer ayuu kulmay golahan amniga qaranka. kulamadaas badidoodna haddii aysan ahayn dhammaantood waxaa yeelanaya madaxda heer federaal iyo dowlad goboleed oo ay weheliyaan wasiiro labada heer ah iyo taliyayaasha ciidamada qaranka. laakiin kulankii ugu dambeeyey ee golaha amniga qaranka wuxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo bishii July ee sanadkii 2018. wixii markaa ka dambeeyey golaha amniga qaranka wax kulana cabdifataaxoo maysa yeelan. Marka Muxidiinow, maxay hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya u codsanaysaa in golahaas amniga qaranka ee haatan sida usoo sharaxday ay arrintan uga shiraan? warqadda agaasimaha hay-adda sirdoonka u diray ra-iisul wasaaraha ayaa arrinkan looga hadlay, waxaana lagu sheegay in ay hay-addu fahansan tahay in kiiska sargaalad ikraan tahliil uu la xiriiro hay-ado iyo xafiisyo dowladeed oo kala duwan oo sida warqadda lagu qoray xaq u leh inay ogaadaan xaqiiqada dhacdadan iyo xogta ay xambaarsan tahay. waxaa kaloo warqadda ka muuqata in hay-adda kiiska gabadha la dilay ee sirdoonka Soomaaliya ka tirsaneed ay u arkaan arrin xasaasi ah oo amniga qarankana si ula xiriirta. marka ahmiyadda ay arrinku leedahay iyo xafiisyada kala duwan oo ay sheegeen inay qusayso oo ay tahay inay wax ka ogaadaan darteed sidaas ayuu agaasimaha hay-adda sirdoonka Soomaaliya ku sheegay inay ugu baahan yihiin in la kulmiyo golaha amniga qaranka ee aan kulmin wixii ka dambeeyey 2018. kaasi waxa uu ahaa Muxidiin Axmed Roble, tifatiraha laanta afka Soomaaliga ee BBC-da oo goorsii horreysay khadka telefoonka igu warramay. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. saacaduna haatan waxay dul taagan tahay 7:15 gowa waqtiga bariga Afrika. warar kale ee noo soo socdaan waxaa ka mid ah ciyaarihii
balse markan sidaad warka caalamka ku maqlayseen ciidamada gaarka ee waddanka Guinea ayaa waxay ku dhawaaqeen bandow socon doona ilaa iyo amar dambe. ciidamadaasi ayaa axaddii talada dalkaasi afgembi kula wareegay iyagoo gacanta ku dhigay madaxweyne Alpha Conde. bayaan ciidamada awoodda qabsaday ay soo saareen oo lagu baahiyey idaacadda qaranka ayay waxay kooxdu ku sheegtay in ay dhowri doonaan badqabka madaxweynaha. waxay kaloo sheegeen in barasaabyada gobolada lagu bedelay taliyayaasha militariga, waxayna kulan saaka oo isniina isugu yeereen wasiirada iyo hogaamiyaasha kale ee qaran iyagoo ku kulmi doona baarlamaanka dalkaasi. waxay sheegeen in cid kasta oo ku guuldareysatay inay kulankaasi soo xaadirto ay ula dhaqmi doonaan sida fallaago oo kale. faahfaahinta warkanna waxaa isku soo duuday oo nala socodsiinaysaa سمير عبد الله جامع. weli ma cadda waxa ka socda Conakry, balse militariga ayaa sheegay in ay la wareegeen awoodda dalka. waxaa telefishinka qaranka dalkaasi ka soo muuqday rag ku labisan dareeska militariga islamarkaasina calanka Guinea uu gadaashooda ka muuqdo ayaa sheegay in ay yihiin guddiga qaran ee dib u dhiska iyo horumarinta. waxay madaxweynaha ku eedeeyeen musuqmaasuq baahsan, maamul xumo iyo faqiirtinimada Guinea ka jirta. waxay sheegeen in dastuurka wax laga bedelay islamarkaasina ay jiri doonaan la tashiyo ku aadan waxyaabaha lagu kordhinayo. waxay kaloo sheegeen in wax laga bedelay dowladda iyadoo xuduudaha dhulkana ay xirnaan doonaan muddo 7 ah. sawirro iyo muuqaalo la soo geliyey baraha bulshada ayaa nin u muuqday Master Conde oo ku labisan sarwaal jenis ah iyo funaanad islamarkaasina ay ku hareeraysan yihiin militari. muuqaalada qaar ayaa waxaa ka muuqday isagoo su'aal lagu weydiinayo luuqadda Faransiiska oo la weydiiyey ma jiraan wax dhibaato ah oo lagu geystay, mana uusan ka jawaabin. safaaradda Australia ee dalkaasi ayaa muwaadiniinteeda ku wargelisay in ay tagaan meel ammaan ah oo ay isha ku hayaan warbaahinta maxalliga ah. waxaa jiray warar kala duwan oo sheegaya in shalay subaxii dhawaqa rasaas laga maqlayay caasimadda dalka. سمير عبد الله جامعة أيوة mahadsantahay. markana wararka Soomaalida aynu ku laabanay waxaa lagu wadaa in dhawaan la gudagali doono howlaha doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliland ee golayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. arrintan ayaa waxay daba socotaa heshiiskii shalay magaalada Muqdisho ku kala sixideen gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed, kaas oo lagu soo afjaray khilaafkii muddaba u dhaxeeyay ee ku saabsanaa maamulka doorashada. haddaba muxuu ka dhigan yahay heshiiskaasi? su-aashaasi kuwo kale ayaa waxaanu weydiinay axmed shire faarax oo ah cilmibaare ka tirsan jaamacadda Puntland State University oo magaalada Garowe ku taala. waxaana u warramay wariyahayaga axmed maxamed ibraahim axmed nagaash. walaalo horta sida muuqata heshiiskan dhinacyadii siyaasiyiinta reer waqooyiga waxaa muddaa inuu ay gaareen heshiis ka duwan heshiisyadii hore oo si cad oo muuqata maaragtay qodobadii taagnaa ay iskaga yimaadeen islamarkaasna ay bulshada horteeda ku kala seexdeen. amoodina in maaragtay uu halkaa tanaazul ay ka sameeyeen oo waxyaabihii laysku hayay ay maaragtay ka midoobeen oo shaafgarad ay ka gaareen. marka waxaa la filayaa in heshiiskan uu ka duwan yahay heshiisyadii ama wadahadaladii mararka qaybta dhici jiray hore. aan moodin in arrintan ay soo afjartay arrin muddo taagneyd. iminka cidda labada garab dhexdhexaadinaysay waa guddoomiyaha maxkamadda sare ayuu ahaa oo isna reer waqooyiya. ma waxaa la odhan karayaa markay iyagu isku keliyeysteen bay heshiiyeen? walaalo horta waxaaba muuqatay baa cilada siyaasiyiinta waqooyiga haystaynahaayeen kala garabsiinta macnaha ay ku dhex jireen siyaasiyiinta reer koonfureed. way muuqataa in arrintan iyagu maaragtay ay dhinac iskula baxeen. markaana caadiyana waxaa muuqda halkaa ka muuqda masabkayga dabcan koonfurta waqooyiga waddanka oo waxaa ka muuqata in marna colaad iyo ishaysi wax u dhexeeya inuusan jirin ay wixii dhamaatay. koonfurta dabcan mararka qaybta ugu imaan waxaan colaad nahayn nabad nahayn oo dhexe oo maaragtay aan dhammaan. marka waa arrin bogaadin mudan oo maaragtay arrin taagneed soo afjartay. wayna ka muuqataa in maaragtay arrintaas ay sidoor wax ka bedeleen. heshiiskoogan laftoodu iminka saamayn ma ku yeelanayaa xidhiirkii ay labada garab la lahaayeen siyaasiyiinta reer koonfureedka ah? arrintan guusha ugu weyn waddanka doorashadiisa oo muddo taagneyd waxaan u malaynay cid walba inay ku farxi doonto oo maaragtay keliya ciladu waxay awal ka taagnay see wax loo dhameeya wax loo dhaqaajiya. waxaa muddaa hadda maaragtay dhinacyadii inay tanaasulaad isku sameeyeen. muhiimadun ay tahay arrinta marka hore la garan waayo oo ah in doorashadan waxaan dhexda la dhigto maaragtay tartan ay tahay cidda aanan si gaara isoon boob maaragtay ama khatar loo gelin in maaragtay ama
ama cid ay leexsato doorashadii. Muhiimadda hadda ka muuqato waxa weeye in kursigii dhexda ay dhigteen markaasna kuraastii lagu tartamo labadii qaybood oo doorashada aqalka hoose iyo aqalka dhexe aanan cidna si gaara aysan wax u leexsan la qaybsaday maaragtay waxyaabihii laisdhihi karay markaa dhexaadnimada ku muuqan kartaa. taasaa muhiimadda ugu weynaa. marka saameyn kale ma keeni kartaan ahayn in horey loo socdo oo markaasna cid walba hadda way rabta waa laisku daalay. labada hogaamiye labada garab guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku kolley rag badan oo siyaasiyiina bay qudhooda hormood u ahaayeen oo kala aragti duwanaa. labadoodu haddii ay heshiiskaa gaadheen ma kula muuqataa oo ma dhici kartaa in ay qudhooda labadii garab ee hogaaminayeen qaar ka midii ka fallaagoobaan laftooda? hadda tanaasulku kolley waa laga yaabaa dadka qaybtooda in dhacday in garabyadii kala taageeraya inaysan dhanka dhex arag oo sidoo hore waa wax dhici kara. laakiin sidoo muuqata hadiiba aan kalsooni meesha la dhiso la muujiyo in maaragtay doorashada saa lagu galo aan cidna wax la exsan meesha baqdinta ugu weyn oo jirta waxa in qolo afduubato shaqadii socotay. marka haddii marba wixii dhexayaan dadku waxay dareemi karaan dhacyadu way iskaga soo dhawaadayaan sidii hore oo dhinacyada kala taagnaa. kaasi waxa uu ahaa axmed shire faarax oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda puntland state university oo khadka taleefonka ugu warramaya waryahayaga axmed nagaashe. ka dhegaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. markanna waxaa magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka lagu qabtay kulan hal maalin ah oo yeesheen xirfadlayaal ku waxbartay dhanka iyo waqooyiga Ameerika kuwaas iyo weliba ganacsato horumar ka sameeyay ganacsigooda oo dhammaantood Soomaali ah. shirkan oo ay ugu magac dareen shirweynaha qurba joogta Soomaaliyeed ahaana midkii saddexaad ayaa waxay sheegeen qabanqabayaashu in ujeedkiisu uu ahaa in ay doonayaan in bulshadu ay isku xirmaan oo ay iskaashadaan. gabagabadiina waxaa halkaasi lagu abaalmariyey dhalinyaro abaalmarino sarsare ku helay xirfadooda. haddaba kulankaasi waxaa ka qayb galay warbixintan kusoo koobaya wixii halkaasi ka dhacay waryahayaga Siyaad Siciid Saalax. dadka shirka yimi badi waxay ahaayeen xirfadlayaal wax ku bartay waqooyiga Ameerika iyo ganacsato horumar ka sameeyey shirkadaha ay abuureen. dhalinyaradan urur ay ku midaysan yihiin oo loo soo gaabiyo Isnaabi ayaa soo qabanqaabiyey kulankan ay ugu magac dareen shirweynaha qurba joogta Soomaaliyeed wuxuuna ahaa shirkii saddexaad oo ay qabtaan. والله شركة سأجدد أبو سوى نكسن ودعي وقديجة علي وحبين كأه أوركن ganacsatada Minnesota ka mid ah waxayna iiga warantay xiriirka iyo isku xirnaanshaha ay dhalinyaradan isugu keeneen waxa laga faa'iidi karo. هذا relationship badan baa ka soo baxay in terms of waxaan ka wada business iyo collaboration in la shaqeyn iyo wada shaqeyn badan baa ka soo baxday and dhalinyarada hadda qaarka maanta timi shirkan oo sidii kale ka yimaadeen dhalinyaro kale oo actually magaaladeena Minnesota la degan oo jaamacadaha first year second year third year ay barteen 2 sano ka hor bay mentor gareeyaan. aqoon isweydaarsi ku saabsan qof walba sidii guulaha uu ku keenay ayaa badi goobtan looga hadlayay. dhanka kale se waxaa xusid mudan Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah ganacsatada Minnesota degan ayaa halkan ku bixiyay lacag deeq waxbarasho ah oo dhamayd $10,000. sababta ay ku timid deeqdan ayaan weydiiyey Kaahin. deeqdan waxbarasho waxay ku timiday sanadii barka hor markii uu dhibku ku dhacay waddanka Mareykanka gaar ahaan dadka Soomaalida ee u nugul maxaan ku raacaa caafimaad darrada haysay amba curyaamiinta ahaa ee guryaha deganaa maxaan ku raacaa public housing-ka oo ay qabsatay waxay ahaayeen dhalinyaradii Afrodeeli la shaqaysay ee cuntooyinka la qaybinaysay ee guryaha u geynaysay ee bishii Ramadaan oo 30 cisho bishii Ramadaan dadaale ee kulba guri galayay ee kolba raashin geynay caansiinay dadkaasi waxaan garanay in aan ku caawin karno scholarship waxa quraatay aan ugu mahadnaqi karno waxay noqotay scholarship. waxa goobta shirka dhan socday bandhig shirkadaha agabkoodu ay ku soo bandhigayeen iyo waliba qoraayaal Soomaaliyeed oo buugaa kala duwan goobta keenay. Mursal Aadan Sheekhdon waxa uu ka mid yahay ganacsatada hal abuurkooda iyo horumarkooda halkan ku soo bandhigay wuxuuna ii sheegay waxa shirkadooda cuntada ee US
ay soo bandhigtay. Shirkadayada halkan waxay ku soo bandhigtay servicekan ummadda u hayno sida food serviceka oo aan ku soo kordhinay sida hilibgeelka aanu dhawaan bilaabi doonno iyo arigan already bilownay soo dhoofintiisa iyo service garantiisa iyo delivery garantida dukaamada iyo productyada kala duwan ummadda u hayno wax aad wanaagsan baan ummadda inaan kaga soo qayb galnay aan la soo qayb galan lana soo shirtagnay waan kala qayb galayn ummadda iyo dhalinyarada cusub ee businessyada ku cusub oo soo introduce gareeyay. Waxaan kaloo mursal weydiiyey waxyaabaha ay dhalinyaradan ku dhiirigelinayeen. Dhiirigelin waxaan u sameynaynay inaan dhahno hore u socda wax wanaagsan bay qabteen talooyin kale oo waxaanu siinay sustainability wax la yiraahdo joogteen inay wixii la joogteeyo in businessyo badan la abuuro waxa ugu weynaana aan dhalinyarada maanta siina waxay ahayd wax la yiraahdo sustainability inay wixii joogteeyaan businesska. Xaliimo Aadan oo mar caan ku noqotay gabdhaha dharka xayeysiiya ayaa ka mid ahay dadkii shirkan ka hadlay waxaana mowduuceedu uu ahaa dadku siday hankooda ku gaaraan waxa ayna ii sheegtay Xaliimo inuu shirkani ahaa mid la yaab leh. The event was amazing. Dadkani badan ay isku imaadeen dhalinyaro badan oo wax fiican adduunyada ka qabateen ay imaadeen. So event fiican maasha Allah dadkana si fiican. Maxaad badi kaga hadashay qaybtaada ayaan Xaliimo weydiiyey. And storyal saa ku soo kore ka kumita ku soo kore dadkayga Soomaaliinta yihiin waxaas ka hadalnaa. Dhalinyarada shirkan isugu timi waxaa ka mid ahaa kuwa abaalmarino sare ku helay xirfadahooda sida Naciimo Cabdullaahi oo saxaafadda ku heshay iyo Ifraax Xuseen oo qoridda gabayada dalka Kanada lagaga abaalmariyay. Siyaad Saciid Saalax, BBC, Minnesota. siyaad wuu mahadsan yahay markana ciyaaryahan eegno ciyaar ka tirsanayd isreebka koobka adduunka oo dhex mareysay xulalka waaweyn ee Argentina iyo Brazil ayaa la joojiyay daqiiqado kadib markii ciyaartaasi ay bilaabatay. dhowr ciyaaryahan oo u dheela xulka waddanka Argentina ayaa waxaa lagu eedeeyay inay jabiyeen shuruucda karantiilka COVID-19. arrintaas waxay sababtay in buuq ka dhasho garoonka São Paulo halkaas oo howlwadanada caafimaadka ee Brazil ay gudaha u soo galeen garoonka si ay uga hor istaagaan ciyaaryahanada Argentina u dhashay qaarkood inay ciyaarta sii wataan. arrintaas oo sababtay in kooxdiiba Argentina ay ciyaartii isaga baxeen oo halkaas lagu soo gabagabeeyay. Argentina waxay ku doodaysaa in ay raaceen qaabka caafimaadka ee lagu talagalay cudurka COVID-19 sidoo kalena ay talo weydiisteen xiriirka kubadda cagta ee Latin America. hase yeeshee dhanka kale howlwadanada caafimaadka waxay ku doodayaan in 4 ciyaartooy oo ka tagtay dhanka Ingiriiska oo ka dheelaya dhanka Premier League ay muddo 72 saacadooda ay iskarantiileen. Brazilna waxay ku doodaysaa in xiriirka kubadda cagta ee Brazil waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in 4 ciyaaryahan ay ciyaartooda sii wataan. hase yeeshee howlwadanada caafimaadka ayaa sheegay in arrintaasi aanay ku qanacsanayn waxayna garoonka ka saareen ilaa 4 ciyaaryahan oo kala ah Lo Celso, Romero, Martinez iyo Bondeya. halkaasna ciyaartii ayaa lagu soo gabagabeeyay halkaasi ay eber daqiiqado kooban ka socotay lagu joojiyay. dhanka kalena Afrika hadaan eegno ciyaarihii isreebka koobka adduunka Gabon iyo Masar waxay ku kala baxeen 1-1 Togo iyo Namibia 1-1 ku bilowday halka Rwanda iyo Kenya ay ku kala baxeen 1-1. Jarmalka ayaa guul weyn ka soo gaaray laakiin dhanka iyo isreebka koobka adduunka qaaradda Yurub 6-1 wuxuu kaga adkaaday Armenia. Ingiriiskana waxay 4-1 direen Andorra. waa tahay Belgiumkana 3-1 wuxuu diray dhanka iyo Czech Republic. Walesna 3-2 waxay ka adkaadeen Belarus. idaacaddiina inta ayaan kusoo gabagabeynaya waxaynu ballanaa 2 duhurnimo inta ka horreysa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.